دا مقلي جدين قلا دقالك waxaan leenahay turkiga baan leenahay hagalanay dagaalka waxaan leenahay turkiga qala Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya way nooshahay ha israacdo midnimada ummadda Soomaaliyeed waa muqadas qalbiyada Soomaaliyeed ku qoran diin cadawgana waajibaya insha Allah heshiiskana wuxuu muujinayaa inaan haday gacan la iimaan gacan isaga celinayno difaacaya qarannimada iyo madax banaanida dadka ay cir iyo dhul iyo bad ee Soomaaliyeed waxaanu mustaqbalka gaarsiin doonaa Soomaaliya inay noqoto dawlad isku filan sidaas darteed waxaanu hambalyeynaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogtaan farxad ku soo dhaweeyay heshiiska waxaan ugu baaqaynaa inaad gacmaha qabsataan waxaan ugu baaqaynaa inaad midnimadiina ka shaqaysaan waxaan si gaar ah ula hadlayaa dadka aan ku metelno muxuu ahaa baarlamaanka iyo xukuumadda ee Soomaaliland waa dhamaaday argagixii iyo naxdintii aad ka qabsanaysay siyaasi darteed waxaan niga codsanaynaa oo aan inii soo jeedinaynaa inaad gacmaha isqabtasaan wada jirkiina ka shaqaysaan kana shaqaysaan sidii midnimo Soomaaliyeed oo dhameystiran loo heli lahaa haday tahay xukuumadii iyo haday tahay labadii gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo mowqif adag ka qaatay inay maanta ansixiyaan heel walaal oo ay noo noqotay dawladda Turkiga kaasoo aad difaaca iyo dhaqaalahaba aad iyo aad baan maxaadeenay aanu mahadnaqaynaa waa dareen wadiyadeed waa dareen Soomaalinimo waa dareen qof kasta oo Soomaaliyeed oo maxaadeenay maanta uu ku faraxsan yahay waxaan ka codsanaynaa dhalinyarada firfircoonay ee miidiyahay idinka iskale qaranka la difaacayo bad iyo bariba laga difaacayo waa idinka iyo kuwa tagoogiina ku jira dhaxalkoogii baa la difaacaya inaad buunbuunisaan oo waxa xun ka reebtaan oo laga bilaabo maanta aad u heelisaan qarannimada Soomaaliya jiritaankeena iyo midnimadeena aad u heelisaan waxaan ka soo jeedaa dadka badda la dhiibayo dhulka la dhiibayo iyo badda la dhiibayo dad kale baan ka soo jeedaa waxa leeyahay Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya way nooshahay ha israacdo midnimada ummadda Soomaaliyeed waa muqadas maanta waxaan دا مقلي جدين قلا دقالك waxaan leenahay turkiga qala baan leenahay hagalanay dagaalka hambalyo iyo bogaadin waxaan dirayaa madaxweynaha dalka Soomaaliyeed Professor Xasan Sheekh dadaalkii dheeraa oo soo qabtay hawsha adag oo ku jiro socdaalkii ugu dameeyay oo Addis Ababa oo dadka qaybtooda xataa qaybtooda aaminsanaayeen tagadiisa inay naf lahayn way ku qurux badnayd inuu tago galgasho la jiido sharafteeda ay wax walba wax ku soo noqonay aragtidayada dawlad weyn oo indhadheer loo leeyahay manihin marka inuu soo bandhigo aragtidiisa madaxweynaha dalka aad iyo aad baan ugu mahadinayaa midda labaad waxaan leeyahay waxaanu helay maanta dawladdu waxayna soo gaarsiisay golaha wasiiradu inay soo gaarsiiyeen heshiis Turkiga oo lagu ilaalinayo xeebaha badda Soomaaliyeed taas oo muhiimadeedu ah laba waji lahayd waji ah ilaalinta oo walaalnimo ah waji ah kalluumaysiga iyo khayraadka badda waxaan leenahay Turkiga waxaan leenahay garabkiina Allah galo garabkayga galeen Allah haddii kale waxaan leeyahay oo idin raacinay hadaa maqli jideen qala dagaalka waxaan leenahay turkiga qala baan leenahay hagalanay dagaalka